duni iilatiyo waqti duubanoo tabinada iblays laga daahaybaa dadku taagi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaynu wadnaa kulan taariikhi ah oo ku saabsan maansada iyo wixii suugaana oo rag waaweyn oo aan ku noqday halkaasi ay nagala soo qayb galeen inagoo qaybo hore ka soo hadalay qaybtan maantana ay nagala soo qayb galeen maxamed ibraahim adraawi cabdi aadan qays iyo sheekadiisii geedi baabow weliba waxaan jeclayn geedi baabow hadda intaanu maansada bilaabin inuu sheekadiisa hordhacya maasadan geedi baabow ayaa la yidhaahdaa waxaanay soo baxday 82 markaasoo ay ahayd xilli xabsi anigu aan ku jiray markaa xabsiguna waa iska dhibaatadiisaa badnayd markaas qol keliya ayuu ahaa daaqadna ma lahayn horta markaa waa askarta iyo dadkaas adigu wixii banaanka ka jooga qolka ayay maansadu u warramaysaa waa raadiye sidii raadiyo idaacadda wararka looga dhagaysto markaa war unbay bixinaysaa markaynu gallo waxay iska dhigaysaan sidii wax raadiyo u dhagaysanaya unbaa gebigiinu ana raadiyo unbaa noqonaya nin warramaya oo ama raadiyo Djibouti baa ka warramaya ama dee kii raadiyo Hargeysa ama BBC da kolba kii aad doontaan ka dhigtay maansadu markaa waxay ka sheekaysaa nin geedi baabow la yidhaha boqor buu ahaan jiray waa sabankaa imaka ninkaa laga sheekeynayey aala boore iyo bucur bacayr iyo geedi baabow iyo raggaas isku saban bay ahayd markaa meeshan buurxa kaba la yidhaha buu madax ka ahaa wuxuu lahaa barasaabo fara badan oo feelaarow iyo dibkoobaalow iyo arbawheerow iyo garbadiirow way badnaayeen madaxdii raggu dirtaa isagu markaa dee dadkuna markaa caadooyinkiisa waxaa ka mid ahaa marka la guursado gabadha inuu yidhaahdo ii keena intaanad la aqalgelin adugu anigaa soo barakaynaye sidaa daraaddeed safiirtiisu ay u badato ayay ahayd arrintu maalmihii dambe waxaa ku soo baxaya wiil da'yar walaashiyo way isu arkeenna maxaa ku helayoo maxaa dhacay bay leeyahay way u sheekaynaysaa waxay leedahay dee waa tii layna heriyey imakana waa layla aqalgelaya dabeetoo geedi baabow baa ka horeynayo oo dee habeen dambaa lay gelbinayaa bay odhan markaa finish meesha waan ku gacan galay bay leedahay aniga igu hadlay buu leeyay adugu ninkaasaa ninkii shaqo ka qaban doona dii ilahay idhaahdo markaa sheekadu saasay u socotaa dawaana maanso inkastoo aanay sidaan rabay u dhammaystirayn haddana inagu filan kolley iyo kolley eebbow degmada khayraadka dihin ku dilaaciyo dul ahaan islaam dayrkadkaye halkani geedkii weeyaan gees madoobe weeyaan gurigii xilka lahaa raadiyowgii guud iyo waa codkii waxgaradkee hirka gaaban iga maqal ummad yahay guyaal hore boqor gaala baa jiray magaca aad ku garatidi waa geedi baabow geyiguu xukumi jiray guuye dhaqata weeyaan sheekada gunteedii aan idiin gorfeeye warkoo baahsan iga gura isagaa gumeeyey dad gobaa ku noolaa gaashaanka warankiiyo garab way lahaayeen haddii loo abaalgala dad guday ahaayeen cadowgoodu gulufiyo hadduu gaas ku weeraro guul kale ma hoyn jirin iyagoon gadaafiyo qamin godob sokeeye ah waa kii guul ha seegee garbadiilna kuu dhalay oo magaca guud iyo abtirsiinta ugu gala guddoonkii arlada iyo garqaadkii maroodsaday guudka buurxa kaba iyo gebi buu la koray dheer guddi buu abaabulay gasaasacata weeyaan gundhigiiyo distoorkana garbaduuba buu yidhi
go-aankiisii koowaad wuxuu yidhi haddaan gubo ama aan gembiyo shay guracaygu waa toos ninka gaabsadee baqa kurka gooye buu yidhi ka hadlaagaf weeye gowrac mariye buu yidhi goldolooladaydiiyo raadkayga kii gura barka geeye buu yidhi ciidankayga gaarka ah dirayskiisa gaarka ah badhankii ka gooye waadna geeri baa tahay anuun baa gargaar iyo qolo gacan u fidin karaa gacal iyo xigtiyo ehel ka gartow dil baa tahay maxaa wacay gobbaanahay gurigayga mooye xero geelahoyda gayiga waa ka xaraan gammaan kana anaa iskale maxaa wacay gobbaanahay bulsho ganacsi barataa guul keeni maysee gooni waxulahaanshaha hala gaasiru yidhi durba shicibkii guuxiyo dareen iyo sas baa galay guulguul dadweynuhu hadda geesula ciir xoolihii gofano iyo gandibaa candhada tiray galoofooba naasuhu gaagaxoo ma dhiiqaan reerihii gadaanaa gorofkoodii caydhow guulaamo roob iyo onkod iyo gariir ma leh cirkii waa horuu guray webigii ganaan iyo shabeel laba gababsee beerihii guraysnaa sida gegida weeyaan isagaa gasiinkiiyo gallaydii ka maanacay gaajadu sad weeye hala golongoloy intuu geesi naga dilay intuu gaarisay tiray intii gaban la dhalilaa gugiisii ka baaqsaday gudurigu intuu cunay tiro laguma gaadhe e maydkii goldogob yiil laftaad galay yaxmuuda guray habartii gowrace gacalkii midiyeeye gaanleef isugu dhiib guulguul dadweynuhu hadda geesula ciir bari guurtii loo diray galbeed sahanka loo laal koonfur iyo ukaca guba afartaba garaaco midna guul kama yeelin guulguul dadweynuhu hadda geesula ciir gayigii dadqalatow inaad adigu goysiyeen qudhaada lagu gado arrin kula gudboonaa guulguul dadweynuhu hadda geesula ciir waraabihii gaboobee qurboodkii uu dhalay iyo gacalkiisii qaadeen geedkay u waabeen geli maayo buu yidhi gocashadu waxay tahay gaban buu ku cunay beri godoba iga taalle eh ha igeyninuu yidhi haddana way la guureen goob kala yagleeleen markay geliya maageen wuxuu miciigalow yidhi qurboodkii aan dhalayow halkan ii gorfayseen mar baan geel ku weeraday godoba iga taallayaan gobasha lay dhigin isna way la guureen buuraha guntooday aqal uga gangaameen markay geliya maagan wuxuu miciigalow yidhi qurboodkii aan dhalayow qoshan ila jeclaateen waa halkaan ku gowracay awrkii guraatay iga daayo godinlaba godoba iga taalayaan gubasha lay dhigin qurboodkii wuxuu yidhi aabba miciigaloolow ina gowso weynow yaa geeri celin kara yaa geedi wadi kara yaa guura sidi kara gayigii balladnaa o adiga ka giigee xaggee baan ku geynaa guudka igu qaado garbaa igu sidsido gacmaa igu hayuu yidhi isaguna gadaa noqoy waa geedi baabuu liidarkii hashuu ganay guudka kaga dhacdaa yidhi waxba yaan qoljilicdiyo gaameelka furuskiiyo hilibkaaga goosane maruun yaa gobaaday geesiga kaa rida shicibkuna gadaa noqoy guulguul dadweynuhu hadda geesula ciir markuu dhowr gu toocsaday nin la gegay iskala xayd golo lagu caweeyiyo gogol buu ardaa dhigay goombaar iyo dhunkaal gowracata iyo jiic gacayr buu ku urursaday gardarriyo gar labadaba ka ridaytumuu yidhi go-aankiisii kaa xigay wuxuu yidhi ka guursada anoo gacaladiisaa u gorfeeye mooye aqal looma geyn karo waa inaan ka deediyo inay gaari tahay iyo hubsadaa gunteedoon anigu soo gardaadsha maxaa wacay gobbaanay raggii gooxa yuururay gibladii iyo carowgii waxa curiyey gaabkii colkan lagu gabraartiye u sarreeyey gaadada magaca aad ku garatidee arbow heerow guud iyo waa ina gubbaad jiray geeraaradiisii guudka kama xusuusniye haddaan godollo kuu noqo yaasiraay wuxuu yidhi yaa geela kuu jira waxay daba gundhinaya waa geedi baabuu yaa guudka kuu fida waa geedi baabuu yaa geedka kuu taga waa geedi baabuu yaa gartaada naqi kara waa geedi baabuu yaa guusha dhalin kara waa geedi baabuu yaa gaya hablaha ugu waa geedi baabuu waxa lagu gunaanade gabankiiyo darmaantuna magta uu gudboyin
inkastoo garaad iyo geesiyaal aqoon lihi goobtaa ka doodeen hadalkoodii waxa gaday wax magaratadii iyo gulna raacayaashii sacabkay garaaceen guulguul dadweynuhu hadba geesula iyo wuxuu sabanku guuraba wuxuu gebidhacleeyaba wuxuu geedi baabu hadba inan garaara leh naasaha gashaydiyo hilbaheeda gaarkaa caadada guracan iyo gafka kaga ladaabtaba guhaad geelow baa kacay itaalkiisu waa gobol dherarkiisu waa gibin laba iyo gugiisuna waa 20 gaamuray waa midab guduudlow waa geesi qurux badan wadnihiisu galow male gadda xeesha diriireed gankii kulama loolamo guudo waa walaashii gayaankeedii baa helay godkii meherku wuu dhacay geelbiskeedii baa hadhay iyo geedi baabuu gaaroodi roobliye meeshu gurisan weeyaan qorax duhurka gudubti iyo hargaadiida weeyaan geed canjeela weeyaan halkay gini la moodiyey keligeed gallubnay ilmadii ka go'bo tidhi waxay goysay gaadada garadii waa walaashii gubayo ku yidhi weer gacaloy maxaa dhacay goonida baroortaa gaar baanu leeyahay halkee ciilka gaaxsamay walaalkaaga soo guday waxay tidhi guhaadow geedii baan ka weerahay gudahawadkaygii galabaa ka dhiman qura hadalkii gantaar iyo siduu yahay gamuujii laalaadi gorodii gadanyo ismaandhaaf wuxuu yidhi anoon guyin mudan maysid guudood inantii garbaha qabay u gadooma reerkii iyagoona isgaranayn indhuhuna guduuteen habeenkuu shinkii galay shaarubtii iyo gadhkii xiir garayskii eblaayiyo gambadeedii soo xidhay bilaawana guntiga dhigay gudcur fooban weeyaan kama garatid inantii guuto dumara lagu raac garaadkii balaysnaa gaboodkiisii lagu hooy markay daydkii geliyeen hablihii ka soo gude gaadhkiisi kale eri isaga iyo guunkii gurigii ku soo hadhay gabarh bay la tahay weli isna go-aase kama rogin goodkii u afna gahgahda iyo faraxii qosolkii iyo gallaydhkii daayeer gaboobiya gumayska foolxune ilkihiisii gudintiiyo la moodayey geesaha ilaa goonka baashiiyo muuqda goostanbadyadu gabarh bay la tahay weli isna go-aase kama rogin goodkii u afna gaas iyo shidaal iyo gayi nuur la maaho oo ifku waa gabaabsiye geftinkii uu yuururay gundhiyoo ka soo kiciyey jeembaarta ula gudub isna muu ka geegina sidii gaari raalliya ugu jiibsay gugushii hamuungarayaduu qabay durba gaabsantii dhigay markuu guudka uga baxay gabas baa ku sakatay gogga iyo halbowlaha ogocdiisii kala gow baktigii gees kaga tuur guduudka iyo waagii boqortooyadii guray garbadiirow baa furay dumarkiina guulaha guudana jidhkeedii lama gacan togaalayn warkii galabtu waa kaa iyo geedi baabuu iyo geeridiisii iyo goobtii lagu dilay iyo guushii laga helay